بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، رمضان مبارك. بشهر رمضان إنه بلاتي بلوغ إنه إلهي خير كده هاي النصيو وبالخير بدن. المدة ما توحي إن شاء الله وكصاب سنان دونتا بشهر رمضان سودوين تيدا يوحي رقم إذا خصائصتا يوحي به لقاركتا أحكامتيدا يوحي كصاب سنان قدال بين إساقي من دونا بإذن الله تعالى. dadka muslimiinta ilaahay waa dad u doortay oo fadli badan siiyey ummadaha ugu khayrka badan, nebiyada ugu khayrka badan calayhi salaatu wasalaam, kitaabada ugu khayrka badan, bisha bilaha ugu khayrka badan, habeenada ugu khayr badan. lama koobi karo deeqaha ilaahay ina siiyey. wa kaana fadlullaahi calayka cadiima ba nebi maxamed lagu yidhi calayhi salaatu wasalaam. ilaahay deeqda uu ku siiyey mid weyn weeyaan. sidaa daraaddeed ayaa waxaynu mudannahay inaynu ilaahay u shukrino subxaana wa tacaala. bisha ramadaan waa rugni ka mid ah arkaanta islaamka, oo faral ka mid ah faraa'idda islaamka. waxa loo soomayay ugu muhiimsan xigmadda ugu weyn culimadu waxay waa shukran lillahi tacaala nuzuula hada alkitaab alkariim. kitaabkan quruxda badan ee macaan ee sharafta badan soo degistu soo degay ayaa ilaahay loogu shukri naqaya subxaanahu wa tacaala. shahru ramadaan alladii unzila fiihi alqur'aan hudan linnaasi wabayinaatin min alhudaa waalfurqaan ila aakhiri alaaya. bisha ramadaan وبشو قرآن كسود جب إلهي سبحانه وتعالى. أنت أساك فلان وناجد قيمة إلا الله الصوم سيله اللي جو شكر نقو جل جلاله. إلى هو إنه فرض يا الصوم كذا ضد المسلمين هذين هي يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وإيمانك له إلى هو إنه فرض يا لي صومك سدوا فرض لكم إذا كهر ري ساد له وعب سطان. مصومها يقف صون تضافس يحوق عفمات قوانين إلهي كعبس سبحانه وتعالى. بشهر رمضان بلها كلوحي كجد وانت هاي خصائص كذا كم إذا أبينك أوه الرئية الباب ذا الشناد الله فرا الباب ذا النار تنوال حلا شياطين تمضح عذق نوال حلا شيطان كي عدو جوين هوا لقى حري شهوات كاجو يدون النفط هذا هو عدو نوال لقى حبس وطن عمتدي عبستي الراحة دي بلقى شري معناه هذا وأنا نفستو وكانس وهش الساد الله عابد الهين cibaadaduna kuugu dhadhamayso ruuxduna ay kuugu dhismi lahayd. bisha ramadaan albaabada jannada la furaa, waa naarta la xidhaa, shayaadiinta la xidhaa. waa bishii uu quraanku soo degay, iyaduna waa khaas kale oo khusuusiyaadkeeda ka mid waa bisha laylatul qadri ku jirto ummadaha kale aynu kaga duwanno dhowr iyo 80 sanadood dad cibaadeysanayay aynu ka dhigan habeenka hadaynu la kulanno. bishan waxyaabaha bilaa kale kaga duwantay waa bisha kaliya ah oo quraanka magaceeda ilaahay ku xusay 12 bilood ee sanadka ee ilaahay quraanka uu ku sheegay diintu ay إن فرت أنا هم بلاه كلا نترسنه أي إلهي وحلي شهر رمضان مجعيد الله حصي فضل جاي قيمها أي لا ذا درادين فضائل كذا يخصائص كذا وحكم إذا بشن وشهر العبادة والخيرات كلها وضدك قدام وذا عبادة استان بينك التراويح صلاة بلو تجي ما نتي ولا السومي قرآن بالأخرية صدق الله بحنايا ضدك أفكار ذا وحكمانين إيش ذا وحكمانين وباللغو تلقى تلذذ بالعبادة إن العبادة ضدنا ستد معان ستقران كودا دمو والدعاء كودا دنتو والصلاة كودا دنتو هدي هذا إسكت صعطون يكون أفتر دبته ذي وحلوغو تلقى بشان وخصوصيات كذا كم إذا أمو حيبة خاص كلاته وشهر قوة روحية يعني النفط هذا إنه حوجيسته ويحوجيسته عدو جيد أوردن innaga waxa laga yaabaa inuu iska itaal beelo oo iska taag daraano oo iska maaragtay uu daran badan inaga muuqato laakiin hadda taariikhda dib ugu noqotay nabi maxamed cali salaam guulihii ugu waaweynaa ee cadow uu ka gaadhay bisha ramadaan buu gaadhay dagaalkii beder dagaalkii fatxu maka alqaadisiya oo saxaabadu ay galeen iyo dagaalo aad u fara badan oo kale guushu waxay soo gaadhay dadkii wanaagsanaa bisha ramadaan dhexdeeda iyagoo sooman imkaaniyaadka dhaqaalaha aynu haysanay suxuuraha iyo raashinka haysanaa aanay haysanin meesha ka noolaayeen baa ahayd maxay qalbiga bini aadamkuna wuxuu ka nool yahay baa leeyahay moraalkiisa iyo dhismihiisa iyo dadnimadiisu ay ku taala waa qalbiga weeye sida awgeed ilaahay markuu ummadda ambiyada qaar kamid la hadlayay yaa yaxya khudil kitaaba biquwwa yaxya kitaabkan qaado oo ku dhaqan nabi yaxya weeye biquwwatin quwwad ku qaado quwwada waxa laga wadaa marka waa moral iyo niyad iyo firfircooni iyo macaansi weeye sida awgeed walaalayaal bisha ramadaan waxa loo baahan yahay inaynu ka faa'iideysano oo aanad ramadaantan iyo ramadaantii hore isku mid noqonin oo aanad ramadaantan iyo shacbaanta soo dhaaftay isku mid noqon
oonad rabadaan tahay bisha ka dambaysa isku mid noqonin. waxaan walaalayaal kelmadaheena dambe aynu faahfaahsan doona kusoo ururinaya dad muslimiina baynu nahay, jaaniska ilaahay ina siiyey oo inala soo doontay oo inagu nimceeyey oo laga yaabo in ammaankii iyo caafimaadkii iyo jaaniska intaba hayso iyo ku dhaafin. laba nicmo dadka badankoodu ma fahmaan: caafimaadka iyo firaaqada. buu nebigu sal alay wasalam ku mashquul cibaadada iyo alla ka cabsiga. duruusteena dambe insha allahu tacaala waynu kasii akhrin doonaa axkaamta iyo arkaanta iyo shuruudaha. جزاكم الله خيرا. خير كان أسكارسين وبشي خيرك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.